dhammaan asxaabta iyo inta nagu cusub anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan idin wadaa mowduuc aad iyo aad muhiim badan, mowduucaas oo dabcan in la ogaado ama in wax laga fahmo ee aad iyo aad u tahay daruuri si qofka uu u ogaado waxyeeladiisa iyo dhibaatada caafimaad darro uu leeyahay. mowduucan waa cudurka loo yaqaano syphilis, cudurka Soomaalida ee u taqaano sfiratada ama waraabowga. dabcan idinkana waxaa idinka rabaa inaad kanaalka subscribe gareysaan, meel dheer aana gaarsiisaan si taasi ay noogu noqoto dhiirigelin anagana aan u soo badino wacyigelinta iyo arrimaha caafimaadka waxyaabaha ku saabsan. cudurka syphiliska ama sfiratada ee Soomaalida u taqaano wuxuu ka mid yahay cudurada aadka u daaha, cudurada saameeya jirka bani'aadanka qaybihiisa kala duwan. cudurkan syphiliska ama sfiratadu waxaa sababa bacteria loo yaqaano Treponema pallidum. cudurkan dabcan wuxuu maraa marxalada aad iyo aad waqti dheer qaadan karo, jirka bani'aadankana meelo badan ka saameyn karo ilaa wuxuu gaaraa 30 sano marka uu qofka uusan iska daaweynin, waxaana laga yaabaa inuu u dhinto. syphiliska ama Soomaalida ee u taqaano sfiratada sidee la isugu gudbiyaa? marka ugu horeyso waxa ugu weyn oo la isugu gudbiyo waa sexual contact, inuu qofku galmo uu la yeesho qof cudurkan bakteeriyadiisa ee jirka ay saameysay asagana uusan war u helin. dabcan si fudud waxaa isku gaaraya dhacamadii labadii qof markii ay ku jiraan sexual contactiga. sidoo kale waxa kale oo lagu gudbiyaa blood transfusion, inuusan qofkan dabcan cudurka uusan ogeenin in bakteeriyada ay jirkiisa ku jirto balse dhiigiisa uu qof kale u shubay ayaa waxa laga yaabaa inuu u gudbin karo, ama contact inuu dhiigiisa la lahaado qof kale si indirect asagoo qofkaas uu soo warka helin. waxa kale oo la isugu gudbin karaa cudurkan mother to child, hooyada inta uurka ku sido cudurka ilmaha waxaa dhici karto in cudurka ayada war u helin inay u gudbiso cunugeeda through the placenta ee dhiiga cunuga loo gudbinayo, kaasoo nutrients iyo oxygen-ka uu u baahan yahay ay tahay aan laga maarmin. bakteeriyadana aan naqaanay in si toos ah ay ugu gudbi karto dhiiga xaggeeda. dabcan cudurka marka uu ilmaha ay la dhashaan congenital syphilis loo yaqaano. haddaba cudurkan syphiliska waxa uu maraa 4 stage ama 4 marxaladood: primary stage, secondary stage, latent iyo tertiary stage. dhammaan qaybahan way isku wada xigaan. hadduusan qofku goor hore uusan la soconin in cudurkii uu sido ama uusan iska baarin, waxaa laga yaabaa in qaybta labaad uu u gudbiyo primary, haddana qaybta saddexaad, haddana qaybta afraad. taasi waxay qaadan kartaa marka muddo 30 sano ah in cudurkii uu la noolaado uu bakteeriyada jirkiisa ay ku jirto waxyeeleysa. marka aan ku horumarno primary stage, primary stage-ku dabcan wax calaamadaha lagu garan karo oo syphiliska ma lahan marka marxaladda koowaad uu marayo cudurka, balse incubation period-ka markuu uu kasoo gudbo cudurka xilli-huuriska muddo 3 bilood ama 90 beri markuu ay bakteeriyada infected ay ku noqoto jirka qaybihiisa kala duwan, blood stream-kana ay aad u sii saameyso, immunoglobulins iyo antibodies-ka ama difaaca jirkana ay la dagaasho, ayaa waxay noqonaysaa 90 beri kadib in ay kasoo muuqdaan waxa loo yaqaano jansira, heart jansira ama ulcer genitalis kasoo muuqana. nabra yaryar ayaa lagu arkaa xubnaha taranka ee bani'aadanka, sida ragga oo nabar kasoo baxayo xubintooda taranka qaybta kore. nabarkaas ragga kasoo baxayo wuxuu leeyahay margins, circular margins, wareeg dabcan darafya ayuu leeyahay, qaybtiisa hoosena way godan tahay. nabarkaas dabcan raggu ma ku hayo wax xanuun ah, wax cuncun ah ama wax barar ah, balse haddii qofku uu contact uu la yeesho ama uu xoqo ama uu taabto nabarkaas xubinta taranka kasoo baxaya ee ragga ee wareegsan ee dabcan darafyo leh ama wareeg afka leh, waxay noqonaysaa qofkii in lesion uu kasii sameysmo ama uu sii bararo nabarkii, cuncunna uu keeno. sababtoo ah asaga ayaa gacanta ula tagay oo xoqay, saameyntaas ka dhalatay inuu qofka taabto ama xoqo ayaa waxaa ka dhalanaysa itching, inuu cuncuno bararo nabarkii. qaybta dumarka ayagana waxaa kasoo muuqanaya fijeenaha ama xubintooda taranka qaybaheeda geeska in ay ku sameysmo sidii hadda nabarkii aan kasoo hadlayna jansira oo ahay in nabar wareegsan oo sida rag oo kale oo darafyo u leh ayagana inuu kasoo muuqdo. nabarkaas wareegsan dabcan wax cuncun iyo calaamado haweenka ay ku garan karaan ma laha. sida guud ahaan primary stage-ka markii laga hadlayo dabcan clinical signs and symptoms
oo si guud lagu fahmi karo qofku ma lahan, balse serological haddii rabaalo waa laga yaabaa in positive ay noqoto. Secondary stage-ka ama secondary syphilis stage marka aan ka hadalna ayada marka uu dabcan uu kasoo wareego Jansira had spontaneous heals markuu iska raysto nabarkii primary stage-ka ahay, waxaa laga yaabaa after 2 months ka bacdi inuu soo muuqdo nabaro badan oo ahay skin rash, jirka qaybihiisa kala duwana dhammaan inay kasoo muuqdaan nabaro in qofka kasoo yacan. Stage-kan waa secondary stage, waa stage-ka labaad. Calaamadaha lagu garanayo kaliya marka uu nabarkii hoose xubinta taranka ee ragga ama dumarka kasoo baxay oo primary stage-ka spontaneous heals caadi ah uu isaga raysto, wax dabcan uu qofka uu kala oo saayid uusan ka helin ayaa waxaa dhacayso inay soo muuqdaan 2 bil ama 3 bil inta u dhaxayso nabaro badan oo jirka kasoo yaacay dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka ayay nabarahaas kasoo yaacay. nabarahaas dabcan waxa waaye gacmahana way kasoo muuqanayaan, lugaha, xabadka, wejiga, dhammaan qaybo badan ayaa lagu arkaa nabarahaas. dabcan nabarahaas maxay wataan marka qandho badan oo saayid way wataan, waxay kaloo wataan lymphadenopathy in qanjiradan qaybahan ama qanjirada hoose ama kilkisha inay soo bararto mararka qaarkood, xanuun badan ay ku qabato. sidoo kale waxay wataan anemic يعني in dhiiga qofka bani'aadamka uu aad hoos u dhacay, hypovolemia wax loo yaqaan, sababta bacteria ayaa waxay la dagaalay ama la falgalaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee difaaca ee blood circulation. taas haday dhacdo hemoglobin levelka aad ayuu u yaraanaa. waxa kaloo dabcan lagu arkaa nabar kale oo kasoo muuqanaya genital organs, halka kuwii primary stage-ka ee ahaayeen in Jansira had uu kasoo muuqdo qaybaha kore, balse stage-kan kale oo secondary waxaa lagu arkaa nabar loo yaqaan condylomata lata. si isugu mid ayaa lagu arkaa haweenka iyo ragga, waxayna kasoo baxaan lower premium-ka qaybka hoose ee xubinta taranka, xiniyaha ilaa dabada inta u dhaxayso ayaa lagu arki karaa nabaro yar oo ku yaalo qaybaha hoose. dabcan dumarka marka laga hadla ayagana sidoo kale waa lagu arki karaa, halka raggana ee xubinta taranka ilaa xiniyaha inta ku yaalo nabaro yar oo ku kuusan in lagu arko. nabarahaas yar oo ku kuusan waa nabaraha loo yaqaan condylomata lata. secondary syphilis stage-ka marka uu ku jiro dhammaan jirkiisa qaybaha kala duwan nabaro ay kasoo baxeen. symptomatic illness oo qofkaas uu xanuunsan yahay, great fever badan lagu arkaa, qandho saayid, weight loss ayaa lagu arkaa. sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa murqo xanuun iyo joints xanuuno. dhammaan calaamadahaas waxay ku cadeynayaan in qofkan uu marayo stage-ka labaad ee syphiliska ama spiritada. waxaa haboon markaas in la geeyo isbitaal si clinically ama treatment loo ogaado cudurkan heerka uu marayo, lagana daaweeyo baaritaano loo sameeyo. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa. dabcan waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin dhageysiga ay dhageysateen. insha Allah waxaan soo gelin doonaa mowduucyo aad iyo aad u xiiso badan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.